gudoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye xubno wasiir aqoon-yahan Jamaal Cali Xuseen maamulka sare ee jaamacadda Golis marti sharaf kale oo badan ayaa ka qayb galay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu soo gootinayay dafcadii shanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Golis qaybteeda magaalada Berbera. ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Golis Professor Siciid Maxamed Xasan iyo xildhibaan Naasir Xaaji Cali Shire waxaana kamid ah hadaladoodii. jaamacadda Golis waa jaamacad wadaniya shan gobol ku furan gobolka Lixaada ayaa dhowaan ka furayno insha Allah taala doorka waan tegaynaa buuhoodna waan joognaa Laascaanood waan joognaa Eergaabo Berbera Burco Hargeysa waa jaamacad qaran arrimihiina lagula talinayay ee magaranaysa wasiirka Cali Buurad sheegayay khayraadka lacagtoo kale geologiga waa jaamacadda keliya ee ka furanay geologiga dhigta Somaliland waa sida la qiro jaamacadda ugu tayo wanaagsan baan nahay alxamdulillah. waa maalin kale oo taariikhi ah waa maalin kale oo taariikh iyo xus ah gobolka saaxil waa maalin ka turjumaysa inaynu gaadhnay himilooyinkii aynu gobol ahaan aynu lahayn ee xagga tacliinta waa guul inoo soo hoyatay waa guul u soo hoyatay ummadda degan gobolka saaxil iyo guud ahaanba qaranka Somaliland waxaa maanta qalin jabinaya dufcaddii shanaad ee ka baxday jaamacadda Golis qaybteeda Berbera waxa ay ka kooban tahay sidii hore loo xusay 4 kulliyadood waxa ay kulliyadahaasi kala yihiin waa arday baratay oo ku takhasustay culuumta siyaasadda oo ka baxday kulliyadda loo yaqaano dhaqaalaha iyo culuumta siyaasadda waa markii u horeysay ee siyaasiyiin gobolka saaxil ay soo baxeen si hambalyo. sidoo kale waxa iyaguna hadalka iska daba maray mas'uuliyiin aad u tiro badan isla markaana si isku mid ah u hambaliyay ardaydan qalin jabisay una mahadnaqay macallimiinta iyo waalidiinta ardaydan ku tacabtay oo bulshada ku soo biirin kartaan aqoontii aad soo barateen haddii mid walba inta ka mid ah saacad ama 2 saacadood ama 3 saacadood arrinta weli iskuulada ku jirta xaafadiisa wax baro wadana wax bay u taraysaa idinka laftiisa aqoontiina xasuus bay u noqonaysaa وميلا وكمتها صبرتين وحكوت الله يلقي لنتي جامعته اليوم مهن كالقدرة تجد كذا وقصة أصلا تبتدي اليوم اللي عندكم يوم جد بلد واحد وعقل الله طبيعي يعني تعرف الشيء وخبرتك في ساعة بيضة ميت مجال البلد يو محايا إذا ماريها وخلت بيها مستقيم ورد نقال فرعورة وحنا يا مرا أفكي شيء تكدو الوالد اللي طالما يا مرا واحد يصير كل تكدو هذا أنت كبر كل وخاصة يا مرا يدو أرتيلا كل اللي في الكل بس اللي شيء يعني ما توقع إنه فرحات يا عمليو إنه كسر كلنا بين كذا في جامعة الجولس وأنا أقول إنه بين معي بين البنات أما قبل الساحل ما Golis وهو يدي جامعاتها أما جامعاتها قبل الساحل Golis ما جاي نوت فيه قبل الساحل وحيلت من العلم يا أخوان كما يمكن يدري منين وححسوس كامرتي يا ابنائي sida barnaamijyada ay ku wareegeen xafiis kasta iyo iskuulada iyo meel kasta oo laga shaqeeyo qof walba waxay oranayeen waqtiga aad leeyahay karto inaad wax barato waxaan ku haynaa waxbarashada noocan gabagabadii munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi midna ardayda u guddoonsiiyay shahaadadii muujinaysay inay yihiin kuwa ka qalin jabiyay jaamacadda Golis sidoo kale waxa isaguna hambaliyay ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacaddan Golis gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed waxaana kamid ah hadaladoodii salaakadii hadalkii intii laga oran lahaa maanta munaasabada waa laga yidhi ku noqonaayo waxaan ku darayaa hambaliyada ardayda waalidkooda jaamacadda iyo gobolka Saaxil iyo qarankuba hambaliyo waayo 6 iyo 7 aqoon-yahan baa maanta Soomaaliya soo kortay
kusoo kordhay oo saaxil kusoo kordhay oo gurigooda qof aqoon-yahanaa kusoo kordhay oo goolis baa maanta intaasoo aqoon-yahano hurtay dhammaantood waa falyanaynaa waan u ducaynay intaas waa hambali halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland marlabaad waxaan ugu mahadnaqayaa ardayda maanta kulliyadda ka kala jebisay mukhtaar oo ardayda ugu firfircoon gobolka saaxil ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xafladdan anagoo kaga habsaamay maanta taas tacsiya oo askari howlgal ku jirtay oo dhintay wadnuhu istaagay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa inaan ka soo gaadho waan jeclaa cabdirashiid suul Somali Cable TV berbera